maayarka magaalada Burco xogayaa waaxda fulinta ee golaha deegaanka magaalada Burco iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka isla magaalada Burco ayaa hambaliyo soo jeediyay xildhibaan Maxamuud Faarax Warsame oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Ceergaabo isla markaasina madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland iyagoo arrintaasi iyo arrimo kale ka hadlayaba waxa hadaladoodii kamid ah halkan golaha deegaan ahaan iyo xogayihii degmada ayaan halkan ku joognaa iyo saxaafadda waxaan hambaliyo u diraynaa xildhibaankayagii da'da yaraa Maxamuud Warsame Jaamac oo ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Ceergaabo oo madaxweynaha qaranku Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raxmad hasiye uu doortay ama uu igmaday inuu noqdo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga marka hore hambaliyada kadib waxaan ku faraxsanahay in uu madaxweynuhu u garto markuu qiimihiisa arkay kartidiisa iyo dadnimadiisa arkay waxaan uga tuuleynaa horta aad iyo aad baan u hambaliyeynaynaa aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa wasiir Maxamuud Warsame Jaamac aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii waa wasiir qiimo leh sida maayarku sheegay waa wasiir daayar run ahaantii marka hore had iyo jeer wasiirada waxa laga dhex magacaabi jiray oo madaxweynuhu ka soo dhex dooran jiray golaha wakiilada waxaad moodaa maanta inay u gubtahay oo bilaabantay dhinacii golaha deegaanka waxaan filayaa in iminka la iska wado boorka la isku tumo golaha deegaanka laftooduna ay hamigoodii kor u qaadi doonaan insha allahu tacaala oo iyagana iminka u soo jeesatay xaggii xukuumaddu focuskii madaxweynuhu ku soo muuqan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin waanu soo dhaweynaynaa waanu u ducaynay kugu hambaliyeenaynaa insha Allah ragga saxda siyaasadda ku soo jirana waxaan leenahay roolka oo madaxweynaha Siiraayo uu dhalinyarta u jeexay idinkuna roolka raaca ha ka beedhina dhalinyarta sida uu gacan qabtay u gacan wasiir ku-xigeenka difaaca qaranka Maxamuud Warsame waxaan leenahay soo dhawow inay waxtay nin dhalinyaro daayar oo firfircoon xilka lagu idmaday ilaahay ku asturo waana ku tahadeynaa waxaana tahay nin xilka ka adag oo mutagara waxaan ku leenahay ilaahay ku asturo madaxweynaha waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay talaabada aad qaaday axkimadka kooban oranaya mahadnaq iyo hambaliyo iyo dardaaran marka hore waxaan hambaleynayaa wasiirka cusub ee loo magacaabay wasaaradda gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka Maxamuud Warsame Jaamac Ali Muuse waxaan leeyahay saaxiib hambaliyo waan hubaa waan ku kalsoonahay kartidaada iyo aqoontaada iyo waarinimada halkan waxaan ugu hambaliyeynaynaa xildhibaankayagii loo magacaabay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Maxamuud Warsame waxaan leeyahay ilaahay xilkaa kuu fududeeyo in dhalinyarada xil culus baad qaaday Allah kugu asturo waxaan baliyo iyo bogaadin uga dirno wasiir ku-xigeenka cusub ee Maxamuud Warsame markii horena xildhibaan golaha deegaanka ka tirsanaa runtii waxay noqotay mid aanu aad ugu faraxnay haddaan nahay golaha deegaanka ee Burco wuxuu ahaa nin naga tirsan waxaan aaminsanahay inuu yahay in xildhibaan markii hore active ah imikana noqon doona kuna filan hawsha uu yahay karti u leh hambaliyo aanu direynaa iyo bogaadin marka hore Ilaahay baa mahad leh markii xigtana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa mahad leh waxaan uga mahad celinaynaa sida uu daayirtii u dhiirigeliyay marka saddexaad waxaan hambalyo u dirayaa Maxamuud Maxamuud egas xildhibaan maanta waa wasiirka difaaca waxaan ilaahay xilka ku asturo ha kugu ilaaliyo shidalkiisa dadkiisa aan Allah ka dhigo halla waa ku daraya markuu yaraabaan aqaanayo gaashan cadaan loo jiro gaashan cadaan hadii loo sheegay gaashankii ma loo dhiibay وشرماركاس من أحمد شرماركودي ورباين سكريا عبد الرحمن إبراهيم هرقيس برايس مقالة دبرو يا حرون تقول كتبنا